السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. وفانا الحمد لله أكرم سلاتة. الحمد لله. والو بريها نيو. هاي. ها. وسده. dadkan iska hadal badan yihiin mugtahay aadiyad hadalkooda ay iga sheegayaan hadal qaar iga sheegayaan dhibsaday marka hadalkaas ay iga sheegayaan aad u dhibsaday iyo qalbigeyga waxa ka dareemaa ciriiri aad u fara badan marka aad u dhibsaday warniyo horta hadalka bani aadanka waa sida dhagaxaanta oo kale adiga haddii aad wax weyn adiga ka dhigtid waad ku dhawr jabaysaa le nabi sallallahu alayhi wasallam magaalada makka markii asuu oo joogay nabi sallallahu alayhi wasallam dhibaato fara badan oo kala kulmay magaalada intuu joogay heer wuxuu gaaray laabtiisa ay ciriiriyooto macnaha qalbigiisa oo ciriiriyoodo ilaah subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku leeyahay walaqad naclam annaka yatiqu sadruka bima yaqulun waan ognahay in ay laabtaada ama qalbigaaga ciriiriyoonayo waxyaabaha ayaga ay sheegayaan darteeda marka ilaah quraanka wuxuu ku leeyahay qad naclam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun waan ognahay in ay ku murugo gelinayaan waxyaabaha ayaga ay sheegayaan nabi sallallahu alayhi wasallam markuu aad u murugooday ilaah subxaanahu wa ta'aala wuxuu u sheegay daawadii oo kaga bixi lahaa murugada haddaba daawadaas ilaah subxaanahu wa ta'aala uu sheegay maxay tahay fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-saajidiin rabbigaaga u tasbiixso kana mid noqo kuwa sujuudsan wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqiin rabbigaagana caabud oo ku xirnow ilaahay ilaa ay geerida kaaga timaado marka tasbiixda waa daawada wax waliba cudur waliba waxa daawo ah tasbiixda hadalka hadda culeyska adag kuga haya ama ku murugo gelinay shayga kaliya u daawada waa tasbiixda marka adiga tasbiixda joogtay insha Allah